ogeysiis dhammaan waxaa la ogeysiinayaa Soomaalida ku nool dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Bristol ee dalka Britain in lagu qaban doono xaflad si weyn loo soo agaasimay taasi oo lagu soo dhaweyn doono madaxweynihii dawladda ku meel gaarka dalka Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed oo dhawaanahan ku sugnaa dalka Ingiriiska xafladan ayaa la filayaa in madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uu kaga dhawaaqo urur loogu magac daray Samadoon Foundation oo damacsan yahay inuu wax kaga qabto xaaladaha waxbarashada caafimaadka iyo waliba dib u heshiisiinta Soomaalida ku kala firdhowday dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya haddaba hagaagan idin tilmaamo xafladan lagu soo dhaweynayo Shariif Sheekh Axmed waxa lagu qaban doonaa haddii Allah idmo The Bristol Hotel Princess Street Bristol BS1 4QF magaalada Bristol haddaba wixii faahfaahin inta dheeraada fadlan kala xiriir gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladan mudane Axmed Geedow oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Bristol kana xiriir telephone number eber 79 3942 eber 62 xafladan ayaa waxaa la qaban doonaa 24 bisha January ee sanadan 2015 oo ku astaysan maalinimada Sabtida sidoo kale telefishinka caalamiga ee Royal ayaa waxa uu si toos ah idinkaga soo tabin doonaa madasha Shariif Sheekh Axmed uu kaga dhawaaqayo Samadoon Foundation ee magaalada Bristol haddaba daawade yaan lagaga sheekeynin xafladda soo dhaweynta madaxweynihii dawladda ku meel gaarka dalka Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed